السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا برنامجنا بدبادة أكشن عن فيديو سوغرينتني شقوينك هنا في أفريقيا يا ملها أنت بدل البطن UNSOS وهيئة قلمة المدوبية وساقرن كرتان با هيدا UN تابع كمية هاي قلمة المدوبية وحي وبهانت هاي لوجيستيك أوفيسر FS6 نمبر كده وياه ومقدش الصومالية job title waxa weeye waa logistic officer job code keedu waa logistic officer marka department office kuna waxa weeye waa United Nations Support Office in Somalia UNSOS balehda qof logistic officer rayn saad logistic officer ku garan kartaano alaab soo iibinta waxyaabaha wixii la halmaala and so on shaqadan waxa la soo geliyay 12 June waxaana dhacaysaa ilaa 16 June 2023 qofkii shaqadan daneynaya ee ku wanaagsan waxa loo yaqaano logisticada waa shaqo iska fudud runtii saamsiyaadka area Muqdisho ku nool awoodna u leh fadlan linkiga aan ku soo dhigi doono xagga hoose ee shaqada la xiriira fadlan akhri responsibility-gaaga dhamma ku yaalo wixii qaban doonto oo lagu sii sheegay halka laga sheegi doono and so on marka qualification laga baahan yahay aqoonta waxa laga baahan yahay high school diploma or equivalent waa diploma laga baahan yahay ama dugsi sare dhowr sano in ku dhawaadana waa inaad ahaataa maxaa la yiraahdo qof way arnimo heli kara marka diplomooyinka waxa loo sii baahan karaa oo kale dad haysta certification dhanka logisticada ah ama supply chain management waxa loo yaqaano fixed asset management is required also marka cidii danaysa shaqada insha Allah hala apply gareeyo shaqadan habka lagu apply gareeyo waxa weeyaan waa by online CV-ga lama dirayo halkii ku qorantay blue ay ku qorantay apply here ku dhufo marka insha Allah waxaan rajaynayaa dilaa ka inaad si fiican CV-ga inta u diyaargaraysato hadhow CV-ga meel baa lagu attach garanaya meelaha kaaga baahan inaad ku attach garan karaysaa waxaan kaloo iyadana rabaa insha Allah inaan idila wadaago oo shaqo kaloo iyadana iska fudud oo ah program associate oo full system-ka ah oo gaalkacay looga baahan yahay shaqadaasina waa shaqo hay'adaha qaramada soo haysiin gaar ahaan hay'adda cuntada adduunka World Food Program WFP gaalkacay qofkaas ka shaqeynaya Soomaaliya kontaraaga ugu horeeya waa haween yar shaqadan markaa waxay dhici doontaa 16 June ee la close gareyn doonaa ama laga saari doonaa khadka qof inta wixii ka horeeya waa la soo apply gareyn karaa therefore qofkii u baahan shaqada inuu xareeyo waxa laga baahan yahay inuu haysto university degree agriculture-ka agronomiga maxaa la yiraahdaa agronomy market information system environmental engineering food system or any other field to international development assistance wixii la xidhan meelahaas laga baahan yahay waxa kaloo looga baahan karaa secondary degree in additional years ayaa looga baahan karaa duu leeyahay insha Allah shaqada hal apply gareeyo qofkii apply gareyn karayo linkii xaq hoose soo dhigay wixii looga baahan yahay waajibaadana way ku qoran yihiin UN to badana lama email ma hawa waa system baa lagu apply gareeyaa apply here bartu ku qoran tahay fadlan ka apply garee waxaan doonayaa dira sidoo kale inaan xagga Hargeysa imaado shaqadaasi WFP waxa gaalkacyo tiyoor Muqdisho ahayd UNSOS ki Hargeysa ka wamanaya oo iyaduna hay'ad loo yaqaan Faru Foundation oo inta badan xagga waxbarashada xooga saarta ciddii macallimada ku fiican hay'adaas macallimiin bay u baahan tahay khaasatan waxay u baahan tahay primary English teacher Hargeysa laga baahan yahay qof Ingiriisiga primary-ga u dhigi kara oo aqoonta Ingiriisiga leh marka inta badan head officer ku qofkaasi hadhow report gareynaya wixii la halmaala qofkaas de Ingiriisi waa garan kartaa qofkii de Ingiriisi hore soo dhiga ama soo dhigtay uu garanaya habraac loo marayo fadlan cidii daranaysa shaqadaas apply gareyso bachelor degree baa loo baahay xagga aqoonta education degree in education khaasatan qofku si fiican xagga English-ka iyo literature-ka in way arrimo leeyahay 5 years oo xagga maxaa la yiraahdaa dhigista iskuulada ah inuu fahmi karo
nidaamka xidhigista si fiican ansoo marka waxaad samaynaysaa qofkii doonaya shaqada inuu apply gareeyo deadline waxa weeyaan waa June 25 2023 weeyaan qofkii u baahan inuu CV-giisa soo dargareysto at the same time sidoo kale by online ku apply garanaya apply here barta ku qoranta ku dhufo linkiga waan ku soo dhigayaa isla ID faro baan ku jirnaa waxay u baahan tahay accountant qof Hargeysa ayaa lagu baahan qof accountant marka iyadana sidaas leeg baan rajin insha Allah hal sano qofka ay contractgiisa ma koro yahay qofkaasi waxyaabaha oo accountant-ka waxa lagu baahan yahay xagga iskuulka waxa lagu baahan waajibaadka inuu ahaado school fee collection ka inuu sameyn karo prepare quarterly and yearly finances report seeks explanation with the help of school heads prepare monthly financial reports inta iskuulka inta xisaabaadkiisa nidaamkiisa oo dhan uu soo dhameystiri karayo si bilaa oo uu isku habeyn karayo waxa kale looga baahan 3 sano way arnimo xagga NGO-yada inuu ku shaqeeyay ama iskuulada ama waxa la mid inuu ku shaqeeyay degree xagga accounting ama business management ka haysto basic accounting waa inuu ka haystaa bookkeeping-ka debits credits and asset liabilities waxyaabaha wada yaqaan inta badan oo kul waa systemka xisaabaadka Excel-ka iyo Word-ka iyo Outlook-ga waa inuu fahmi karayaa isla saas election la taga June shaqadan iyadana dhacaysa CV-gana waxa lagu apply garanayaa by online marka iyadana insha Allah linkiga waan soo dhigayaa Faru Foundation hadana ku soo noqday oo iyaduna baahan scholarship coordinator Hargeysa lagu baahan yahay qofkan muxuu qaban doonaa soo 1 year term maxaa leedahay shaqadiisu waxyaabaha qofka looga baahan waxa kamid ah academic data collection ka for all graduate students ardayda dhammaan ka soo qalin jebisa iskuulada kala duwan ee Faru Foundation schoolska waa in qofkaas marka uu transcript-koodii nidaamkoodii waxyaabaha dhan uu ka mas'uul noqdaa waa in finance team kala shaqeeyaa waa in scholarship applications ka waa in gudoomi karaa qaban karaa kala mudnaantooda fahmi karaa qofkii marka shaqadan daneynaya laftigeedu waa xitaa dadka jaamacadda geliyo kale laftigooda waa process-koodu geli karaya somehow iyo isku xilka socdaalada ardayda ama macallimiinta kulba intii doonaan ba haadaanba iyo waalidiintaba laftigooda cidii maartay shaqada habraaca iskuulka iyo nidaamkiisa iyo waxbarashada kala duwan cidii codsanaysa sida loo codsanayo aduu waxyaabo badan oo qofkaas runtii looga baahan yahay xagga maxaa la xidhinta habraaca iskuulka iyo maxaa la waxbarashada xagga scholarship-ka qofkan waxa kale looga baahan yahay inuu alumni program-kana cidii de maartay iskuulka ka qalin jebisay ee maartay hadhow mustaqbalka nolol bedela samaysa oo lagu soo hirto waxyaabahan oo laga baahan yahay inuu si gaar ah u respect garan karo oo u fahmi karo xagga aqoonta waxa looga baahan qofkan inuu ahaado qof maxaa la yiraahdaa degree xagga extensive training in career counseling career education college student affairs social development ka wixii la halmaala ama master's degree waa inuu ahaado haddii uu yahay waa la sii tixgelinayaa sidaas ilaa shaqada shalaadka bisha dhacaysa iyadana sida ha loo ogaado iyadana by online baa lagu apply garanaya sida qorshuhu ahaa هذا اللي قلنا action against hunger مقدشو ayaa xoga baahan tahay hygiene promoter dadka nadaafada iyo dadka caafimaadka halka soo gali karaya marka just linkiga waan soo dhigi doonaa xagga hoose qof walba taageeray qofkii taageeran karaya ay xagga caafimaad ku wanaagsan gaar ahaan wash program-ka oo sida tusaale ahaan kale qofkaas waxa lagu baahan inuu organize gareeyo community to sessions xagga community to identify deficiencies in terms of hygiene, sanitation, and other use of water. marka wash program aad baan soo galiyaa marka qofkii fahmi karo wash program inta badan waan dhignaa waa subject level xagga mashaariicda qofkii danayna insha Allah linkiga xagga soo gelinay hayago shanaad 22 June ba shaqadan booskooda dhacaya shaqadan by online lagu xarin ma iyadoo lagu xarinaya by email HR halka ku qoran tahay /recruitment ayaa emailka noocaas insha Allah ku apply garee oo inta copy gareysato gali meesha lagu tala galay dadka shortlist-ka baa la soo xigaya baa la yiri
shaqo xagga inaminatriska ah baa jirta oo jawhar iyo beledweyne Soomaaliya NRC baa u baahan marka ciddii inaminatrisa hawsha geli karta xog ururinta imaniga ku fiican please keep going inaad la xiriidho hay'adaas si aad maxaa la website-keeda booqato khaasatan maxaa la yiraahdaa markay timaado maxaa la inaminatriska waa qof xog soo ururinaya macluumaad ama baahi loo baahay ma jiri karta hay'adu u baahan tahay marka iyadana please try best inaad maaragtay shaqada iyadana aad apply garin karto isla saas waxay uga baahan tahay inaminatrice uga baahan tahay hay'ad loo qaado NRC waajid iyo diinsoor Soomaaliya ee looga baahan yahay sidoo kale marka keep going inaad insha Allah shaqooyinka aad apply garayso wixii markaad apply garanayso ciddii u baahan technical support taageero farsamo gacansiin xagga macallin talooyinka fadlan waxa la igala soo xiriiraan WhatsApp numberka 0634862926 waa 0634862926 ciddii u baahan tababar xagga hay'adaha la xiriira khaasatan NGOs-ka iyo system-kooda iyo shaqada loo leeyahay iyagana xirsin insha Allah inay noo soo codsan karaan oo WhatsApp-ka inaga soo codsan karaan insha Allah hala dadaalo shaqooyinkana hala apply garayo kullu shaqaalaha badan oo jirta laakiin inaad noqoto marba competitor active ayaan ka harjinay insha Allah oo shaqooyinka aad apply garaysaan ciddii macallimiinta ku fiican ciddii logistics ku fiican ciddii wash program ku fiican kulli waxa dad badan baa apply garanaya laakiin haniyad jib marnaba mar walba always isku day inaad markaa si qurux badan wax apply garan karto oo dadaali karayso many thanks in badan ma ana soo gelin maxaa la yiraahdaa YouTube xagga shaqooyinka laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa inaan si garaajo insha Allah aan soo gelin doonaa ilaa ka dhow. Assalaamu calaykum.